howlka shirarka ee maxadka diiniga iyo maadiga ee Saalixudiin Buuhoodle waxa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen waalidiin waxgarad iyo marti sharaf kale iyadoona munaasabadani lagu guddoonsiinayay shahaadooyin isla markaana lagu sagootinayay 32 arday oo dhameystay maxadka diiniga ee Saalixudiin Buuhoodle waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Sheekh Cabdicasiis oo kamid ah muwaasisiintii maxadkaasi sanadkan loo qabtay iyo dhammaan bulshooyinka gobolka Caymeed oo fawaa'id fara badan oo runtii maxadku uu leeyahay arkay marka xafladda waxa aynu Allah subhanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaynaa sida qiimaha badan ay noogu dhacday inta harina Allah subhanahu wa ta'ala inoo sii dhameystiro runtii maxadka waxa weeye dafacadii uu saaray maxadku weeyaan saddexaad markaas waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala mahada iska leh bulshooyinta Buuhoodlana waxaan u sheegaynaa runtii awoodaan waxaan u saarnay in waxbarashada icdaadiga ah ay maaragtay dadku ka faa'iideystaan oo ardaygu u dhismo oo ardaygii oo dhisan diin ahaan iyo maadi ahaanba u dhisan markaa u gudbo oo maaragtay waxbarashadii sare markaa sarowga ahayd u gudbo waana soo bandhignay runtii waxqabadkayagii ama waxqabadkii maxadka in badan baan soo bandhignay magaalada gobolka waliba Caymeed bulshooyinta ku nool ay arkeen haddana waxaan leenahay maxadku insha Allah ta'ala tadawur iyo horumar ayuu sameeyay hal ogaado halaga warhayo arday badan oo qaadan doona insha Allah ta'ala ardayda wax baratay oo maanta dugsiga hoose dhaxdhameysatay in loo dhameystiro waxbarashadooda oo kor loo qaado macaahidda sare la geeyo oo ilaa heer jaamacadeed la wado si waxbarashadooda ay buuro u noqoto aan laga hadhin kuwa inay soo korayana la keeno macaahidda oo iyagana wax la baro waxaan kaloo ugu baaqayaa bulshooyinta in shareecada loo dadaalo iyo goobaha waxbarashada ama maadi ha noqdeen ama diin ha noqdeen dadka in wax la baro ladan iyo khitaamka ardayda dafcadii 2014 ka qalin jabinaysay insha Allah ta'ala iyo kuwa kale ee cusub soo dhawayntooda iyo kuwii hore u dhiganayay daraasada si waditaankooda iyo waalidiinta kaga farxintooda macallimiinta oo wixii ay soo qabteen natiijadoodii soo bandhigaya marka biidnillaahi kariim waxaynu leenahay xafladda lagu soo dhawaado meel kastoo la joogo tacliinta daacada loo noqdo xilligeenu intiisa badan aynu siino sidaynu inagu wax u baran lahayn ubadkeena wax u bari lahayn ummadda horumar u gaarsiin lahayn ku boorinaynaa ardada dhigata Saalixudiin in sida dadaalka badan ee ay macallimiintu ugu dadaalayaan iyaguna ay waxbarashada ugu dadaalaan oo ay noqdaan arday si wanaagsan u barata wixii loo dhigo ilaahayna waxaan ka baryaynaa haddaanu nahay waalidiinta ardada dhigata inay noqoto kuwii lagu aflaxo diinta loo dhigayana si wanaagsan u bartaan ayaan ilaahay uga baryaynaa dufcadani ayaa noqonaysa dufcadii saddexaad ee ka baxda maxadka Saalixudiin Buuhoodle Cabdicasiis Aadan Jaamac Som News Buuhoodle